السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. cashirkan wuxuu la socdaa haddii aad sameynaysid conversion oo sida hadda aan sameynaba xayisiintan weli review ku jirtaa waqti adiga saacada kasoo wareegata weli conversionka macnaha in oo lasoo review gareeyo waqtiga qaadataa marka haddii aragtid in waqti dheer qaadanayso hawlwelin haddii adiga aad aragtid inay muddo 24 saacadood ay iskaga jirto iska demi mid kale dib u samey laakiin waxa aad samaysay dib aa ugu soo celinin waxaa laga yaabaa inay macnaha u direen qof human being inuu inuu bini aadan uu ku sameynayo manually uu review gareynayo laga yaabaa marka don't worry okay waxaan rabaa marka inaan la wadaago wax yar oo markii aad conversion xayisiin aad sameynaysid aad u baahan tahay oo must ku horta website-kaaga speedkiisa inaad iska jegaraysid taas waa mid labo website-kaas aad wax ku xayisiinaysid waa inuu at least telephone number uu leeyahay oo macnaha ay arki karaan Facebook because Facebook waxay isticmaalaan botkuna macnaha waa robot oo crawls on your website waa spider camal markuu kor socdo wuxuu fiirinaa bis phone number iyo wuxuu fiirinaa iyo privacy policy iyo wax noocaas marka website-kaagana inuu privacy policy leeyahay waayo oo macnaha at least privacy policy aad uu leeyahay hadda ku dhufto kale macnaha ujeedin privacy policy page ayuu jaburon macnaha haddii aad u baahantahay kale privacy policy oo aad u baahantahay kale waxaad tegi kartaa Google marka Google tagtid waxaad ku qoraysaa kale generate privacy qor kadib kan ku dhufo ay ku qoran tahay mid kale ku qoran tahay privacy policy generator ay ku qoran tahay make sure inuu kaas yahay kuwa kale inaa ku dhufan inay ku qoran tahay www.privacypolicygenerator.info aad ku dhufanaysaa kadib meesha marka imaatid waxaad ku qoraysaa magacaaga oo kambaniga magaciisa Jaburon anagana la dhahaa so haddii hadda marka aan ku qoro kale Jaburon oo jeedin asaga isticmaalay magaca wuxuu ahaa Jaburon website-ka ama kambaniga website name-ka Jaburon kadibna waxaad gelinaysaa markaas website-ka www.dardo.tk dhimale kadib next leedahay marka next leedahay ku weydiinaa cookies ma isticmaashaa hadii aad cookies oo isticmaalo website-kaaga haadhe hadii uu isticmaalin ma iska leh hadii aad tahay iska dhimale AdSense ma isticmaalaa AdSense Google yes or no website-kaaga third party iyo waxaas xayisiin oo Google iyo waxaas ku xayisiisaa no ama yes kadibna waxaad dhahaysaa next kadib wuxuu ku weydiinaa wadanka wadanka markaas waxaad dhahaysaa Soomaaliya meesha markaas adiga isleedahay waxba ku xayisiinaysaa ama waa joogtaa dhib ma laha laakiin adiga meesha adiga isleedahay meeshaas aad joogtaa xayisiintaadana meeshaas waa ku dhigi kartaa so haddii marka aad ku dhufid Soomaaliya kadib email ku weydiinaa markaas email waad geli kartaa hello@jaburon.com waa email fake email sax maahan so future maybe inuu sax noqdo haddii Jaburon ay noqoto company weyn okay kadib waxaad dhahaysaa generate my privacy policy markuu asaga ku generate garaa isku markii waa kanaa marka markaas waa soo baxay waa copy garaystay privacy policy-gan oo website-kan waxaan u isticmaalaa everything oo wax ku xayisiinayo so Google Ads markaan sameynayo YouTube Ads markaan sameynayo markay noqoto Facebook all waxay u baahan yihiin inuu website-kaaga leeyahay privacy policy haddii aad markaas website-kaaga aad ku diri kartidna email way kasii jecel yihiin oo macnaha contact information inuu lahaado maadaama anaga aan isticmaalayna landing page that landing page waa inuu haysto at least something oo macnaha contact information so haddii aad u baahato kale email haddii aad marka landing page-ka isticmaalaysid ani hadda waxaan isticmaalaa landing page builder oo la dhaho swipe pages waxa adiga markaas ay isticmaalaysid fiirinta haddii aan hadda Jaburon emailkeeda aan ku darayo kale waxaan leeyahay markaas email waxaan leeyahay markaan Jaburon soo qaad emailka waxa waaye hello@jaburon.com okay so waxaan leeyahay save kadibna publish website-ka meeshii adiga isticmaalaysid oo landing page builder-ka isticmaalaysid ku xiran tahay
tan kale oo aan rabo quickly inaan la share gareeyo iyadana waxa waaye site-kaaga speedkiisa in aad macnaha iska jargaraysid. So marka haddii aad fiirisid sidoo kale site-kan website-kan waxa ka dhigi kara slow 90% waa images badan hadduu leeyahay website-ka oo imageskaasna aad kasoo qaadatay Facebook ama Google ama saydad kale aad kasoo qaadatay waxa waaye waa culus yihiin. Marka haddii hadda aan fiirino waxaa jirto laba meel oo aan ku test gareeyo site speedka GTmetrix. So haddii aad ku qorto GTmetrix aad ku qorto Google oo kusoo baxaa soo kaleba Google iskalaasaan jeclahay inay lihiin oo laga yaabaa. Marka site-kaagi ayaad ku paste gareynaysaa meeshaas kabacdina test aa leedahay mid kala jiro hadda ma xasuusto magaciisii. So haddii Google aan tago test site speed ayaa maqan laakiin mar walbana waa hilmaamaa. I think Bing Jong malda Jung Bong malda Bing Bing Dong okay so kudufo markaas tools dot meesha ku qoran tahay haddii aan kusoo laabto tartiib samee meeshan tools dot kudufo kadib website-ka geli URL-ka markaad gelisid meesha harta dooran kartaa. It doesn't matter Asia joogto Asia dooro hadee adiga waxaan macnaha wax oo difference ay sameynaysa hadda aniga London aan joogaa so obviously waxaa dhahaa Asia joogaan leh for example. So dhib ma leh meesha joogtid adiga wax weyn macnaha ma sameynayso. Okay hadda marka haddii kusoo laabano GTmetrix waxaana tusaa website-keenu in uu sameeyey speedkiisa uu fiican yahay. marka meeshaan isha ku haynaysaa meeshaan waa inay ahaataa under 3 second speedka macnaha qofka markuu ku dhufto 3 second wixii ka hooseeyo ayaa macawaladu 3 second ka badan yahay marka maxaa xalawa marka su'aasha inay isweydiinayso laga yaabo. Scorekan is okay laakiin waxa u baahan tahay speedkaas u baahan tahay 1.7 kan marka labadooda waxaan u isticmaalaa waxa waaye they have different the opinion macnaha kan waxaa laga 1.7 noqda kalena waxaa laga noqda 1.8 ama 1.5 marka haddii aad fiirisid sidoo kale kan hadda low timekiisa wuxuu ka dhigay 3.79 seconds oo dhahay low timeka laakiinse this one is more accurate kana still haddii aad rabtid marka aad rabtid inay noqoto 3.7 ay noqotay laakiin aad 3 rabtay oo aad rabtid inay wax ka bedeshid speedkaas kama soo qaada Asia meeshaad haddii aan ka dhigno oo kale wax badan ma isbedelayo haddii aan meeshan Asia ka dhigno oo kale. So for example test ma kusoo laabo ku dhufo United Kingdom London ka dhig hadday 3.7 something oo ka dhigay. So marka waxaan rabaa haddii aan London ka dhigo macnaha wax difference ma u dhexeeyo still wuxuu leeyahay 3.7 second way. Okay low time ka hadda ujeedin second waa kasii hooseeyaaba marka waxa 74 na wuxuu ka dhigay performance-ka kana wuxuu ka dhigay 93 second-kina waa ka hooseeya hadda 74 second maqaane second-ka kasii hoose maray macnaha. Okay haddii marka aan ku tuso quickly qaabka speedkaaga u samayn kartid kow horta imagedan inaad ka saarto meesha ama aad ku bidhahdo ama haddii meel kugu jiraan aad kala soo baxdo ee aad tagto website-kan waxaa la dhahaa tiny png ku dhufo kadib imagedan meesha kugu qoran oo ma kugu jiro oo kale haddii aad u baahanto oo kale inaad macnaha aad ka dhigtid light maadaama hadda ay badan yihiin hadda mid kamid ah haddaan raadiyo kule desktop inay ku jiraan aan maleynaa. So haddii aan tago kale desktopka ku jiraan so waxaan sameynaa marka mid kamid ah ayaan ku bidhahaa markaan dhaho desktopka noo gelinaa so screenshot waaye kulligood Google iyo meelahaas aan kasoo qaaday. So okay so number one kan hadda waxaan dhihi karaa inta qaado aan meeshan ku dhex tuuri karaa meeshan yare drag and drop ka ku dhex tuuri karaa kadib compress ku sameynaa compress markuu ku sameeyo waxaa soo baxaysa markaas intii uu ka dhigay
73% oo ka gooyay macnaha. kadib download aan leeyahay, marka download dhaho meel kala gashanaa, kadib website-keen kusoo laabanaa, all the images oo compress kusoo sameeyay aan meesha soo gelinaa, kadib waa baxaa website-keen meeshaan tagaya asaa speed testiga midkii aan raban markaas ku test garanaa. haddii 2 second 1 second alla ka dhiga xataa 1 second haddii xataa uu kasoo fiicnaado is good, because adiga ma rabtid website markaa qofka u dirtid oo qaato 5-6 second, qofka wuxuu ku laabanaa Facebook meesha aad ka keento ku laabanaa qofka, marka qofka inaad dhaqsi u tegi kartid waayo macnaha. Okay, marka cashirkan intaas ayuu ku egyahay oo macnaha waxaan rabay bas in aan idin sheego waxyaaba muhiimkaada conversion sameynaysid oo in telephone number, email iyo privacy policy. haddii xataa email aad haysan, telephone number iyo privacy policy labadaas haddaa haysatid very important waayo. without these two hore xayisiintaada review xataa kuma daayayso, isku marka hore kasoo noqonayba, waxaan u badan tahay xataa account-kaaga dhibaato sii gaarsiiso. marka isha ku hay. marka hadda maadaama aan soo dhaafno meeshaan iyo hadda marayso meesha ugu dambeysa ay review ku jirto, waxay u badan tahay because privacy policy-ga ma ku dirin, oo markii aan xayisiinta sameynay kabacdi ayaan ku diray. oo marka hadda videoga markaa fiirisid oon ka hadlayo website ku arki kartaa privacy policy male. oo hadda nafteeda markaa meesha imaadan aan video bilaabayan refresh dhahay, kadib aan gadaal uga diray. marka waxaa laga yaabaa markii koowaad oo crawlka sameeyey inuu ka waayay, kadibna uu rabo inuu qof u diro oo macnaha bini aadan oo macnaha baro oo fiirinayso everything. so marka everything looks legit. macnaha wax reason oo lagu soo celi karo waxay noqonayaan on bis in imageyadan oo kale ay copyright leeyihiin, oo copyright-kaasna uu Facebook akhriyo. markuu akhriyo kadibna uu dhaho violation waxaa ku samaysay property aadna leeyihiin camal, markaasna xayisiintaas saas lagu diido. laakiinse I don't know haddii leedahay copyright iyo haddii leeyihiin. this is just a test site oo wax ku baranayno aan gurina ku korinayno same time. marka soo dhawaada. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.